بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه درسك كوبا إن شاء الله تعالى wuxuu ku saabsiisan yahay alwaasic الdiiniy waasica fi luga alcarabiya ay alxaabis aw ilkaf waxa wax kaa celiya ama waxa wax joojiya macno labaadna culamada qaar way sheegaanoo waasica ilhaamkana waa la ydhahaa labada lafdiba waxay u deliishadaan qisadii nebiyullaahi sulaymaan fahum yuusacuun ciidamadiisii markii waa laysu celinayey waa laysu joojinayey ama rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calay awsicnii alhimnii na waa ku fasiraan calaa kulli xaal alwaasic iddiini waxaan uga dan lehnay waxa weeyaan culamaai nafs waxay dhahdeen bini aadamku wuxuu leeyahay wax dawaafic la ydhaahdo wax ku bixiya oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ku abuuray oo loogu talagalay nolosha inay qayb horu socodkeeduba inuu iyada ku dhisan yahay iyo wax keena waxaa in si fiican loo isticmaalo joojiya dawaaficdu maala dawaafic jinsiya ilaahay dadka wuxuu ku abuuray rag iyo dumarku inay isu baahan yihiin waxaa bini aadamka ku abuuran daafic xubu tamalluk inuu wax yeesho waxaa ku abuuran bini aadamka xubu الظuhuuri wالtamayuz inuu muuqdo waxaa ku abuuran bay dhahay bini aadamka xubu اlistiknaa curious inuu xogaado laakiin waxay leeyihin waxaase haddii sidooda loo sii daayo waxaa ku abuuran inuu wax cuno waxna cabo laakiin waxaasi waxay u baahan yihin bay yidhaahdaan kawaabix ama dawaabit laakiin kawaabit uma baahna bay yidhahdaan qolada afcarabi ku hadasha kawaabixdu waa break wax joojiya wax xadeeyo ka ilaaliya in si xun loo isticmaalo in se la dafiro oo la diido looma baahna oo kabti lagu sameeyo waxaynu hadda u dan leenahay markaa waxa weeyaan bini aadamka maxaa ku bixiya inuu samaha sameeyo qaanuunka raaco bulshada waxtar u yeesho maxaa ku bixiya diida inuu xumaha sameeyo dhibtu inay dhacdo sharka inuu ka weecdo waxay dhahdaan culammadu inta ugu badan leh waa qayb daakhiliya iyo qayb khaarijiya bay yidhaahdaan waasicaas ama si kale haddaynu u tilmaamno laba gudaha qofkay ka yimaadaan bay yidhaahdaan labana waa dabadday kaga yimaadaan laba qofka gudihiisa ka yimaadaana waxay yidhahdaan waa addaafic alfitri aw alwaasic alfitriy abuurka ilaahay siduu bini aadamka u abuuray iyo muctaqadaadka iyo diinta uu rumaysan yahay labadaasi waa laba shay oo nolosha qofka suluugiisa iyo dhaqankiisa kontaroolo oo waddo mariya laakiin qofka gudihiisay ka yimaadaan labana dabadday ka yimaadaan bay yidhaahdaan waa aلsulطa wاlmujtamac bay yidhaahdaan waa maamulka iyo qaanuunka iyo sistamka iyo bulshada iyo dhaqamadeeda iyo taqaaliiddeeda saddex baynu tilmaami lakiin anigu waxaan u socdaa un alwaasic diiniy oo anu arkayo inuu yahay ka ugu muhiimsan ka koowaad waasic اlfitra ama alwaasic اljibiliy ama culamaa اlusuuliyiin usuul اfiqiga culamada qorta waxay dhahdaan alwaasic الطabciy aw الطabeeciy sida ibnu cabdisalaam iyo ibn اlqayim iyo shaatibi iyo siyuuطi iyo kani waa fitrada abuurka wax ku saabsan oo waa maxay
إلهي باب بني آدم كسق من وأبوري ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سق من بان وأبوري با إلهي لي سبحانه وتعالى إلهي باب بني آدم كوحكت الماما فطرة الله التي فطر الناس عليها إلهي باب كو أبوري قفكو إنو قمناضو وقفك بني آدم كاي هدي أنا يو إيمانين وحيابها خارجية وأنا لوعوعينين سيدي إلهي وأبوري لو دايو حماهنا ونعيا بيد هذا سبانا وشعلانيا قفك بني آدم كي بفطريا بعدالة دو شعلي أبو رهان بالظلم جو نعبيه إلهي بصوا أبوري لكن وحيابا خارجي انت كوي مادام way weecin karaan wixii cadaalad ahana dulma igu sawiri karaa wixii dulmiga ah cadaalad bay igu sawiri karaan kaasi waa shay kharijiya laakiin aslul fitra imka hadaad aragto qof yaro halka lagu dilay aslul fitra wad ka naxaysaa aslul fitra qofka la dulminaya ma ogola sida ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii waa bisawxu tilmaamay البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس سموه وأخلاق في عنده دنبقنا ووحى نفته يكون حسيلي ويدي ديده يعني وحط المام يا نبي عليه الصلاة والسلام وحي أن نصوص شرعية كصاء أرور هذا نسوي ده هدنا أي نفته ديده إنه إثم جاي ما حما هينو جاي كاسي وازع فطري لكن انت بدن ظروفات قفكو كنول يا ديغاندا يا انفايرمنت كبيئه بلشده دقمده وحاسا خلخليه سوغيد النبي عليه الصلاه والسلام وحوت المامي المه انه كدشو كل مولود يولد على الفطره لكن ابها يهويدا ما افكار يهودات راسيه ما كو مجوسيه ما كو ديما كلا راعيه waxa kale dawaabiddaas aan tilmaamayna kamida si guud u baniyaga u tilmaamayna waasic almujtamac bay yiraahdaan ama adabid almujtamaci bulshada iyo dhaqankeeda iyo caadaadkeeda oo bulshadu waxba jira sababdu doonaha u soo samaysmay markuu xad soo gaadho qofku aanu bulshada la waajihi karin oo ka xishoonayo isleey war dadka kula yaabi doona hadaad samayso تطبو كل يابي ولذلك هو حديث كان بسلفتي النبي وحوت المامي وكرهت أن يطلع عليه الناس تبي وحويا وحى نفتنا أيديده إسلام كان أدنى عضدتكو إنك وأركان مركب بلشة حشادات كحشون السنة دوال ولا يابي أما وحني وحدتك وين هرتي سلوصة ما يماها أيوة المامية مركب وحيد هذان أن بلشة يدق مدد ومرارك قاركود بميزان حساسية يحي وحدده البر والإثم هدي النصوص الشرين نبينا عليه الصلاة والسلام هل حديث ما بينه تلمام دوناي نبوي موشاركي سوك عوضا حديث إمام البخاري في الأدب المفرد كو أرورين أيوه شيخ الألباني لا حسن صحيح نبا شاركي سوك عوضي دبتنا إلهي رسول كيسيبو يموحي إن لي جارا يؤذيني إلهي رسول كيسيبو حلا يمد إيشارة ورد بيقو هيا درس لبضان أيان لا يهيبو يري محان يالا نبيقو تلوسي ألابت هذا انت تصور رسطو برنان كاردقو برنان كافر يسيبو يري ودادا دادكو مرايو ودادكو مركا كوي مادانا لا يرادو واربحاكو ودعي وشيك ninkii sidii taladii nabigu qaato intuu alaabtiisa qaato halka banaanka fadhiistay war maxaa gurigii ka soo saaray maxay dhibta ku haysataa war mid halkan aan gurigii kaga jiri waayay buu yiraahdaa mid baa soo saaray cidii soo martaaba way habaarta war habaar qabaani muxuu dadka guriyahooda inay deganaadaan u diiday sidee wadan calanay u habaarayeen ayuu ninka arkay bulshadiiba inay isaga ku soo jeesatay wuu u yimi oo wuxuu yiri warniyahow irji ila manzilik فوالله لا أذيك وأنا يقول لك إسكان نقو دب كودي بما يه برشدي دب كودي بما يه يقول لك إسكان نقو أيضا حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وحتسيه مجتمع
masaladan la sameeyey waa wiqaayat lilmujtamac aladi raaqaba maa xadaث waxay ilaalin u tahay bulshada kale waxaasoo kale haddaad samaysay waxaas kugu dhacayaan inay tahay waxay kaloo u tahay dersi ninka kan lagu celiyey ninkii wax dhibayey waxa ku filaaday bulshada cadaadiskeedii pressurekay bulshadu ku haysay ayaa keenay inuu ninkan ka foqo iska daayo marka waxay idhahdaan bulshadu marka caadooyinka iyo dhaqamada iyo waxaan samaysmaan way adagtahay qofku inuu khilaafo haddaanu dee xaq wadin inuu waxaasi khilaafo oo wuxuu ka xishoodaa war dadkaa kula yaabi buu is leeyahy waxaa la odhan doonaa ninkii weynaa war wuxuu samaynaya waa maxay sidaa ogeed buu nebigu calayh salaatu wasalaam ninkii dadka badan dilay wuxuu kula taliyey meeshan uu degan yahay inay ardu suu tahay oo dad aan xumahaba diindaynin inay degan yihiin ee meeshan iskaga tag ilaahayna dee qur-aanka nebi maxamed baabuu u tilmaamayay watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaah idan bulshadu daqdigeeda iyo brasharkeedu qofka bini aadamka wax waa ka joojin karaa laakiin kanina ma xoog badna waayo waxay ku xidhan tahay uun qofku inuu meeshan ka baxo meel aan laga garanayn hadduu tago wuxuu doonu sameeyaa meel aan laga garanaynin oo aan la odhanaynin warsoodigaan ceeboobeen waxa samaysay wuxuu doonu iska sameeyaa bulsho ka nooc gadisan waayo waxaan can qanaacatin iyo can diinin ugama tegaynine cadaadiskii un bulshadu ku hayay waxaad iyo goor ku dhici jiray dadkii dhallinyarada ahaayee intay iskuullada ka baxaan yurub loo diri jiray iyagoo madhan dabeetana waxay soo noqon jireen iyagoo sarajooga ku kaajayo khamriga caba ama wax la nooca waayo dadkii ay ka xishoonayeen iyo bulshadii ilaalinaysay ka dhex baxeen waxay u tageen meel ardu suugii uu nebigu ninkan uu sheegay uu yidhi ka tagoo kale ah dabeetana waa iska firin bidheen waayo ceebba maaha waxa kan waxa ku hayay bulshada brashar ku haysay ka saddexaad waxay idhahdaan waa aلsulطa wاlqaanuun qofku waxaan xumaa wuxuu uga baqayaa sistamka iyo nidaamka jira iyo qaanuunkaa ciqaabaya marka hadduu arkayo dee nin booliisa hadduu arkayo waxaa samayn maayo hadduu arkayo odhitkii inuu xisaabinayo xisaabta ku jiro waxba isweydaarin maayo laakiin kuwa ishoodu hadday yaro laabanto wixii isweydaarin karaba wuu isweydaarinaya sulطada qaanuunka iyo haddii la adkeeyo waxay idhahdaan yurub iyo north america nidaam baa yaalla system baa yaalla war system ay dadku ogol yihin ma jira waa la sanduleeyey jeebkooda qof walba la baadha waxaa ku soo galana waa la garanayaa gaadhigaad meel qaldan dhigtay lacag bixi waddadaad dheeraad ku martay lacag bixi halkan baad istaagtay ganaax baa lagu wadaa dadka ganaax baa lagu sanduleeyo lagu aqbal siiyey inuu qof waliba system raaco qumanaado laakiin isna ceebtu leeyahy waxa weeyaan haddii qaanuunku uu gam'o ama isha isku yaro qabto ama qofku meel aan qaanuunka lagu arkaynin uu joogo wuxuu doonu isna sameeyaa dadkan dowladda xada waxaan sameeya hadduu is leeyahay sharcigaa lagu marinaya dee wuu gabanaya laakiin hadduu og yahay qaanuunku mid xooggan inaanu ahayn wuxuu rabo wuu isweydweydaarinaya waxaa taa kaaga daran kuwa mutanafidiinta ah ee iyaguba qaanuunka dejiya ama iyaga laga rabo inay qaanuunka fuliyaan kuwana muu qabto madaxa masaakiintu muddo qaanuun qabtaa inta badan madaxda ma qabto meeshuu doona ha joogaan inta badan madaxda qaanuunku ma qabto waayo qaanuunka ama isagaaba qorqoray isagaa masaalixdiisa ku saleeyey ama dee isagiiba kii fulinayay ma adagta inuu ku qabto walidaalik haddaan wuxuu qanaaca diiniya aanay ahayn tusaalaan ku siinaya reer galbeedka waxaa la yidhaha waa dad xuquuqul bini aadamka ilaaliya waa dad sistamka u hoggaansanaada waa dad waxaasa saasaa laynoo akhriya marka waxaynu haysanaa qofka reer yurubka ee caddaanka ahi
inuu cadaalad badan oo xuquuqda ilaaliya oo dhaqankiisu sidan yahay oo quman inuu yahay laakiin dhowr tusaalaan ku siinaya waddamadooda markay ka soo baxaan maxay samayn jireen markay mustacmiriinta ahaayeen maxay samayn jireen meelaan qaanuunkoodu qabanayn markay joogaan maxay sameeyaan مثلا maraykanku markuu ciraaq joogay muxuu samaynayay abu qurayb iyo meelahaasuu dadku guray ingiriisku markuu joogay afghanistan muxuu samaynayay dadka intuu soo qabtay askartu ku kaajaysay qof bini aadama lagu kaajayo meedar lagu dul kaajayo maxay samaynayeen مثلا guantanamo maxay u samaysteen hadduu qofka maraykan gudihiisa lagu xidho dee qaanuunka iyaga kale ilaalinaya qabanayo markaa waa adkaanaysaa wixii la doono in laga yeelo ama lagu sameeyo waa meel qaanuunka ka yaro fog unge guantanama la geystay marka waxaad doontaad samayn kartaa waayo sharciga iyo qaanuunkii waad ka bixisay mar hadduu qaanuunka ka fogaado siduu doon u samaynaya maxay belgique maxay afrika ku samaysay markii ay gumaysanaysay maxaa holandiyiintu ku sameeyeen south africa iyo indonesia iyo markay wadeen faransiisku muxuu afrikada waqooyi iyo afrikada galbeedka sameeyey macnaheedu waxa weeyaan qaanuunku intuu isagu deganaa buu ku qabanayay hadduu ka baxo wuxuu doonana wuu dili karaa wuxuu doonana wuu samayn karaa mar haddaan qaanuunku qabanaynin haddaba waxaan u socdaa saddexdaa qaybeed